dhawaan ayay ahayd markii ciidamada booliiska gobolka u dalay xabsiga u taxaabeen koob iyo 30 dhalinyaro ah oo lagu haystay falalka kooxanimada kuwaas oo maalmihii u dambeeyay rabshado ka geysanayay magaaladani Boorame xarunta gobolka Awdal hase ahaatee maxkamadda gobolka Awdal ay ku riday xukun kala gadisan oo iskugu jira lacag ganaax lacageed iyo waliba xukun xabsi hase ahaatee waalidiinta dhalay dhalinyaradaas ay ka qaateen racfaan iyadoo saaka si rasmi ah loo horkeenay maxkamadda racfaanka ee gobolkani Awdal taasoo goobjoog ah gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Awdal Sahal Cabdilaahi Xirsi kabada shabrada Soomaaliland magaca shacbiga Soomaaliland maxkamadda racfaanka gobolka Awdal iyo Silib maxkamaddu waxay baabiisay xukunkii hore ee maxkamadda gobolka Awdal dhamaantiiba illa markiisu hadii lamar oblique 59 oblique 15 maxkamaddu waxay si wada jira ugu xukuntay rafcaansanayaasha hoos ku qoran mid walba 3 bilood oo xariga oo loogu xukumay ama looga soo qaaday qodobka 322 xariga qodobka 322 waxa la idinkaga xukumay 3 bilood oo xariga okay laba sidoo kalena waxa laga soo xukumay mid walba qodobka 326 3 bilood oo xariga sagana isugaan xarigoodu waa 6 bilood oo laga bilaabo maalintii la soo xiray oo ah 23kii bishii saddexaad 015 waxay kaloo ku xukuntay qodobka 444 mid walba ganaax lacageed oo dhan 1,680,000 oo shilin Soomaaliya oo haddii bixin waayo loogu bedelayo xarig u dhigma oo ah 8 bilood oo xariga oo ku qiimaysan maalintiiba 7,000 oo shilin laana 7,000 kulli imaantii weey afar xukunsanayaasha xariga waxay ku iibsan karaan xukunsanayaashu bixda bilood xariga waxay ku iibsan karaan maalintiiba 7,000 marka la buuxiyo shuruudahan soo socda oo sadaha xariga iibka waa inuu qoraal ku cadeeyo waalidkiisu inuu mas'uul ka yahay haddii uu dambi kale geysto wiilkiisu oo hadduu booliiska u keeni waayo hadduu dambiga galo isaga loo xirayo wuxuu saxayaa isaga waxaan mas'uul ka ahay wiilkayga hadduu dambi geysto inaan anigu keenayo booliiska gacanta ka saarayo hadduu keeni waayo waalidkiisa ayaa loo xirayaa wiilkiisa dambi galo sidaas uu saxayaa isla markuu saxo waa laga iibin karaa haddii kale no waa yahay isla markaana uu ku qoro qoraalkaasi taleefanka lambarkiisa iyo meesha laga helayo waa waalidka ilmahaas سناش قيبت الكوبات مقعدوا وانت هوس كحران هوس كحران الحكومة طالب الحكومة سيدوا كله كواس وحلا أسكت انت أصلا إلى سنة هذا بدأ أفر بقولي أفرتن يصلح بقولي النبي لبعتن يصلح بقولي الحين لبعتن يقاضب كا 122 يا 124 إحنا كابع غاف يا الله أسكت وحل جود سيدوا كلام وحي محكمة بسيبه تسير وحكمته عن سناش كلها أحمد علمي يوسف وشين تمشيرها خاطر عبد عقل وأفرين تمشيرها يا محمد عوال وشين تمشيرها بيدو والبا جناح العقدون مليان يأخذ بغيت ضباط شيل سماعي أنا يدعو الله أسكت قضبك لحية صدنات قيبتي باراجراف 10 حياتك نظامك عهورتا شوف أن كوسك الله أسكت ويدعو الله وين دونه حابسك عهورتا saldhiga dhexe sal bol dhexe booliiska Boorame bal wahanaya inta ay ganaha bixinayaan xukunsanayaasha saddexda xukunka wuxuu soo baxay maanta bishu tahay 9/5/15 Allah mahad kastaba ahaatee xukunka lagu riday dhalinyaradani ayaa ahaa ku ay waalidiintoodii iyo dhalinyaraduba ku kalsoon yihiin hase ahaatee aan la filayn in ay ku noqon doonaan falalkan iyo kuwa la halmaala waa Jaamac Xuseen Jaamac Somaliland Space Channel Boorama